السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ولا ليال وحمانت خطبتين ويكو سابسنتهاي مصائبك قفك مسلمك كل عيا نوع دون بها نقطة مصيبة داسية إن الدم بداف وطهي إلهينا سبحانه وتعالى درجات وكد العسين أيوه. addoonka mu'minkii adduunyada dhexdeeda waa maruu faraxsan yahay iyo maruu warwarsan yahay oo dhibaata ay haysato. mar kastaba haddii uu la yimaado marka uu faraxsan yahay shukri, noloshiisu khayr iyo wanaag iyo meel Ilaahay ugu dhowaada ayay noqonaysaa. marka dhibaata ay ku dhacdo, amba xanuun ha noqdo amba warwar kale oo adduunyo ha noqoto, haddii uu ku sabrana dhibaatada ku dhacda iyaduna khayr bay u noqonaysaa, iyo markaasi inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku dallacsiiyo. Ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa walaalayaal, adduunyadani inay tahay daar la isku imtixaamayo, oo markaasi imtixaanka dadka qaarna ay ka gudbayaan, dadka qaarna ay ku dhacayaan. Rabbi subxaanahu wa ta'aala waxa uu leeyahay: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إلهي سبحانه وتعالى وحوليه انتو الله او دارتي او عزيgiisa iyo sharaftiisa uu ku dhaartay waanu idin imtixaami doonaa oo jirabaad baan idin marinayaa buu Alle leeyahay subxaanahu wa ta'aala. waxa Ilaahay uu tilmaamay 5 arrimood in qofka mu'minka lagu imtixaamayo. waxaan idinku imtixaami doonaa baa Alle yidhi subxaanahu wa ta'aala wax ka mid ah cabsida. marka cabsidaasi sida mufassiriintu ay tilmaamayaan waxa weeyaan in marka qofku cadow Ilaahay uu ku salido weeye, oo argagax geliya amba waxyeela cabsasho cadow weeye. ka waan idinku imtixaami doonaa. waxa kaloon idinku imtixaami doonaa buu Alle leeyahay subxaanahu wa ta'aala gaajadaana waxa looga jeedaa abaar ayaa idinku dhici doonta, iyaduna waa imtixaan. waxa kale oo la idinku imtixaami doonaa in ubadka in maalka laydinka nusqaamiyo
oo beerihii aad beeranayseen iyo adduunyadii aad tabcayseen in nusqaani ay ku timaado oo ganacsigaagii uu khasaaro taasna iyadana waa laydinku imtixaamaya waa xaggii maalka waxaa kaloo idinku imtixaamaynaa buu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala xagga naftiinnana imtixaan baanu idin gelin waxa weeyaan naftaadii xanuun baa ku dhici qofkii waa la dili ubadkiisiiba wax la yeeli xagga nafaana waanu idinku imtixaamaynaa waxa kale oo imtixaanku idinkaga imanaya xagga midhihii idiin soo baxayay iyo beerihii marka amwaasha hore waa maalkii oo dhan ayuu noqonayaa laakiin thamaraadka dambe waa beerihii idiin soo saaraya waxa ku noolaan lahaydeen ayaa waxa laga yaabaa intuu roobku helo haddana inaanay waxba ka soo bixinba taana iyadana waanu idinku imtixaamaynaa markuu ilaahay arrimaha uu tiriyey ayaa rasuulka waxa lagu yidhi waxaad arrimaha ugu bishaaraysaa dadka ka gudbaya wabashiri saabiriin buu ilaahay ku gabagabay subxaanahu wa tacaala waxaad nebi allow arrimaha aad u sheegtaa kuwa sabraya marka cabsi ay ku timaado xamilayeen isbedelaynin marka gaajiyo abaari ay ku timaado ku sabraya dhibaatada marka maalka uu ka nusqaamo waxa weeyaan qalbi jabaan ku iimaynayna sabir qaadanaya marka dad uu ka dhinto amba naftiisa ay wax soo gaadho sabrayo oo xamilayo ilaahay rumaysan kuwa ugu bishaare ilaahay haddana wuxuu sii raaciyay adoomahaasi dhibaatada waxay ku qaabilayaan inay tahay iimaan inay tahay waa kuwa odhanaya buu ilaahay subxaanahu wa tacaala marka masiibadaasi ay ku dhacdo ilaahay ayaa annaka iska kaayale macnaa isagaanu addoommo u nahay isagaana milkisan sidoo doonana uu noogu tasarrufayaa wuxuu ilaahay uu keenay waanu ku sabraynaa waa kuwa kelmadda ku jawaabaya markay masiibadu ay dhacdo sida oo kale waxay odhanayaan xagga ilaahay baanu noqonaynaa adduunyadan haddii laga tago oo la dhinto kulliba qubuurihii waa la iska soo saari oo adduunyada marka horeba waa laga tegayay ilaahay baana la hortegayay ilaahay iska kaayala ayaan u sabraynaa waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala haddana uu sii tilmaamay kuwa masaa'ibka ku sabraya inay yihiin dadka ugu qiimaha badan leh ee naxariista ilaahay ay ku hoobanayso ulaa'ika calayhim salawaatun min rabbihim alla wuxuu yidhi kuwaa sharaftoodu ay weynaatay ee sabraya dushooda waxaa ahaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaafyadiisa ayuu ilaahay duldhigay waraxma waxaa kaloo dushooda ahaatay naxariista ilaahay oo dhibaatada ku jiri mayside ilaahay waa kaa dulqaadi doonaa alla subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi wa ulaa'ika humul muhtaduun kuwaasuunbaa ah kuwa waddada toosan ku hanuunsan ilaahay isu dhiibay markay dhibaataysan yihiin haddaba walaalayaal masaa'ibka iyo culaysyada qofka mu'minkaa maraya haddii addoonku uu ku sabro waxa uu ka helayaa masaa'ibkaa in xumaantiisa lagu dhaafo in dembigiisa lagu dhaafo in darajaad lagu kor yeelo arrimahaas ayaa uu ku mutaysanayaa waxaa ku sugan xadiidkii imaamu albukhaari iyo muslimba ay soo saarayeen min xadiidi abi saciid wa abi hurayra radia allaahu canhuma nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay maa yusiibu almuslima min nasabin walaa wasabin walaa hammin walaa xusnin walaa adan walaa ghammin xata ashawka yushaakuha ilaa kafara allaahu biha min khadaayaa waxau idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka ah ma taabato oo kuma dhaco daal ma taabto daalku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka waxa weeyaan dhibaataynaya markaad daalan tahay naftaadii dhibaata ayay ku sugan tahay daal ma taabto qofka muslimkaayoo ma daalo waxaa rasuulku yidhi xanuun kuma dhaco noocu doonuba xanuunku ha noqdo mid yar iyo mid weyn waxaa nebigu leeyahay sala allahu calayhi wasallam warwar ma soo maro warwarkaasoo ah mid ku soo socda shay ku soo socda uu ka warwarayo amba shay ka tegey oo markaasi ka dhaafay oo markaa murug kaga tegey ku doonaba ha noqdo
shay dhibaato oo kale addoonka mu'minka ma asiibto murugtan dhaaftay addoonka mu'minka kuma dhacdo xataa waxa rasuulku yidhi ha ahaata waxaasi qodax yar oo lagu mudayna ha noqotee ana qodax yar oo xanuujisay waxa la mid ah jinac yar oo qaniyanayna ha noqotee ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tirtirayaa dhibaatooyinka addoonka maraya dunuubtiisii buu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam oo dambi dhaafay waxyaabahaas u yiin marka culayska addoonka muuminka adduunyada maraya muxuu yahay khayr buu yahay laakiin maxaa muhiim ah walaalayaal inaad ku sabirto oo aad tiraadid ilaahay baa keenay marka hore bay iimu saarnayn isaga ii qadaray iimaankaagu waa inuu sidaa u buuxo xadiidkani haddaba waxa uu tilmaamayaa dhammaan masaa'ibka addoonka ku dhacaya xanuun iyo warwar iyo kurbo iyo culays iyo cabsasho waxyaabahaasoo dhami inuu marka dhinaca laga eego ilaahay khayr uu ku yahay oo wanaag ilaahay ku dhaweynaya uu ku yahay xayale markasta oo dembigaaga la dhaafo oo dunuubtii laga tartiro ilaahay agtiisa qiimo iyo sharaf baad ku yeelanaysaa markasta oo dembigaagu uu bato oo uu iska rufoolo ilaahay subxaanahu wa tacaala waad ka fogaanaysaa waxa dhacday nabigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabigii la oran jiray ibnu mas'uud ayaa rasuulka oo qandha ay hayso aad u xumadaysan ayuu u soo galay nabiga calayhi salaatu wasalaam ibnu mas'uud baa u soo galaya markaasaa wuxuu yiri rasuulkii ilaahayow waad qandhaysan tahay aadna qandhadaasi way ku haysaa si waxa weeyaan aad u daran bay ku haysaa bal hadaa maxay arintaasi ma waxay ka dhigan tahay inay qandhada ku haysaa annaka aad wanaag nala dheer tahay oo xataa xanuunkii aad wanaag nala dheer tahay nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ha aad baan u qandhaysanahay qandhaday haysaa waxa weeye mid laba nin oo idinka mid qabata weeye ayaa haysaa markaasaa waxaan idhi buu yiri rasuulkii ilaahayow arrinkaasi markaa ma wuxuu ka dhigan yahay inaad laba ajri leedahay maadaama laba nin qandhadood ay ku haysato ma laba ajri baad leedahay waxa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ajal dhalika kadhalik arrintu waa sidaas uu nabigu calayhi salaatu wasalaam oo xumada ay qandhada ay haysay laba nin qandhadood u dhigmaysa macnaheedu waxay ka dhigan tahay khayr iyo wanaag ayaan ka helayaa laba nin ajrigood ayaa la igu siinayaa buu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam rasuulku markaa wuxuu tilmaamay addoonka muuminka dhibaatooyinka ku dhacaya in ay darajaad ay kor yeelayaan dambigana lagaga dhaafayo oo ilaahay uu ku kor yeelay darajaadka markaasaa rasuulku waxa uu yiri addoonka muuminka dhib kuma dhaco shawkatun fama fawqaha qodax iyo wax ka weyn ha noqotee wax dhibaato ma gaarsiiyaan illa kaffara Allahu biha sayi'ati haday arintaasi ay dhacdo ilaahay subxaanahu wa ta'ala dunuubtiisi iyo macsidii uu galay ayuu ilaahay kaga dhaafaya oo kaga kor yeelaya dunuubtiisi ilaahay waa uu ku tirtiraya sida geedka caleenta uu daadiyo ee caleenta uga daadato sidaas oo kale ayaa dhibaatooyinka addoonka muuminka maraya xumaantii iyo dambiga ay uga daadinaysaa buu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam haddaba walaalayaal addoonka muuminkii daartan aynu ku noolnahay waa daar takliif iyo shaqo la saaray waa daar addoonku uu tabcayo markuu addoonku uu tacab ku jirana dee mar uu khasaaro iyo mar uu guulaysto labadaba way noqonaysaa wuxuu addoonkaasi mar kaste uu qaabilaya maruu wanaag ku sugan yahay iyo maray balaaya ay haysato waliba sida nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay addoomaha saalixiinta ilaahay uu ka raaliday yahay balaayadu way ku badan tahay waxaa nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam xadiidkii imaamu tirmidhi uu soo saarayay ma yazaalu albalaa'u bilmu'mini walmu'mina fi nafsi wa waladi wa mali hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alayhi khati'a وحولي رسولك صلى الله عليه وسلم بلايدو كزولي ميسو دين ميسو أدونك مؤمنك إيا أدونت مؤمنة دا بلايا قرب مر ميسو مر والبوي دور سارنتاي بلايا داسي مر نفتيسي هايستا قفكي مر وحي هايستا عرورتيسا مر وحي هايستا مالكيسا
مروى البو امتحان يهي لكن وحولي النبي عليه الصلاة والسلام امتحان كاسوه هاي سنة إلا إلهي والله كل ما أضون كاسي إسقو كركيس واحد دنبي عنو صارني حقي كلي فايدة مركا وقا نقطي لبعضني على إسوي كوجو هاي حقي الدنيا ده لكن هدي أتراضى مركا لبعض كوجو دعضو تلو أنيق محل يجر هادين إياه تلو محايقو قارا حولها يجي مرول بوي خساريان نفتيدي مرول بحنون بعضل صارن وبد كيبان مرول بحنون صنا يوم مشغول صنا هاي هدا تاد كور ورتيدو تراهديد دي وناجن هلي ميسيد مركات كوس صبرته أياد وناجن هذا ليس أدونك مؤمن كربتي مركا وأدونك الدنيا سدا وحويان إلهي الدم بيجيسا يريو وهيستو دبعتدو أي هيستوي مصايب كقار نبينا عليه الصلاة والسلام وحاو تلمامي إسقى إن وحويان إن قصة برسينة دبعتدا إن قد عيسى أبا الجود كإلهي وكب حنا يو تشندا أدون كاسيو قلت جيو وحن النبي عليه الصلاة والسلام ولايهي حديث كإمام الترمذي وصوصاري من حديث أبي موسى الأشعري رسولك وحولي إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكتي قبضتم ولد عبدي أدونك مركا عرورتي سو أي كلمتي أي جيريوتو دبعتدا سي أي كل عضو إلهي سبحانه وتعالى ملائكتي سايول هذليا وملائكتي نفط السوق هذي الكاساو حكورنا يا إلهي أدون كيجي ميات سوق هذين ونفتي ميات كسوق هذين إذا تنوح يا نعم إلهي وها نفتي وكسوق هذين إلهي وحكورنا يا سبحانه قبضتم ثمرة فؤادي المهي قلبي سكسوق يمره ساها ميا أدون كيجي كسوق هذين وعرورت وحيابها قلبي إنه كنت لالن أينو قتش علنا هاي وينو عرقنا هتوق المها غير وحنا قضو مال باكو تمقنا سوى حكونا قنايسا مركا المهي كسوق أي قلبي سمره ساها ميا سوقاتين بيل هاي ملاك كورنيا مركا سا ملاك وحورنيا نعم ها ربي وانو سوقاتني أو وحوي النفتي وكسوقاتني إلهي سبحانه وتعالى إسقى وجا أقوم بدن وحاطوك حالته وكسجية هي ملائكة وجا أقوم بدن أيها إسقى أدون كان لا شرف يو إلهي وحورنا يا أدون كيجي محيي لمركب السبادة سكون عضي لبعضها سمركب يكون عضي محوك جوابي سدابو أقابلي ملائكة وحورنا يان حميدك واسترجع إلهي يو وكم هاد عليي والحمد لله أبو يري حقا والله أبطي وإنا لله وإنا إليه راجعون بولي إلهي بأمرك وربسك كايال عنك ياد وحويا أضومه ودنبا سيدانا وايري إلهي مركا محوق جوابيا ملائكتي سي أمر بوصين يا إلهي وحكونا يا ملائكتي ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد أضون كيغا جنة قري وقد سبوا إلهي سبحانه وتعالى gurigaana waxaad u bixisaan gurigii mahad celinta adoonkii masiibadaasi ay ku dhacday ee ilaahay dabeetana u mahad celiyay gurigaas loogu abaal guday jannada ku yaala mahad celintiisii gurigana baytul hamd u bixiya bal hadeega walaalayaal masaa'ibka maanta inaka inagu xanuunka badan ina maraya ilaahay agtiisa halka ay inoo yaalaan iyo waxa la inaga abaal marinayo bal hada dib u qiimee markaad waxaad aragtid waxaad xamilaysaa waxyaabaha ku soo maraya waxaynu ku soo khulaasaynayna dhammaan xaaladaha adoonka mu'minkii uu marayo waxa nabigeenu cadeeyay inay khayr u tahay hadii khayr barwaaqo uu ku sugan yahayna waa u khayr ilaahay waa ugu dhawaanaya hadii masiiba ay haysatana waa u khayr ilaahay wuu ugu dhawaanaya waxa nabigu wiri sallallahu alayhi wa sallam sida ku sugan xadiidkii صحيح مسلم كيا لي غير كيبة من حديث صهيب أيا رسولك وحوري عجبا لأمر المؤمن وحليا بلبو لي النبي عليه الصلاة والسلام أدونك مؤمنك أرنتي سعيا الله يابله إن أمره كله خير أرنكيس أردمي بخير بويهي حالتها الدنيا أمر أردمي خير بويهي قفل وداك سنة أنا مبتشر أرنتا رسولك وحوري صلى الله عليه وسلم هدي برواقة أي أصيبته وبدكيبا وبركوبي
caafimaadkii naftiisa u wanaagsan khayriya adduunyadii ayuu helay haddii barwaaqa ay asiibto barwaaqa uu la kulmo wuu mahad celinaya oo alxamdulilaahi buu odhanayaa ilaahay siiyey buu uga mahad celinaya dabeetana khayr bay u noqonaysaa xaaladii barwaaqada uu ku sugnaa rasuulku waxa uu leeyahay sallallahu alayhi wasallam wa in asaabatu darraa sabar fakaana khayran lah haddii ay dhibaato ku dhacdana wuu sabrayaa dhibaatada ku dhacday dabeetana dhibaatadii maxay isugu bedeshay khayr bay isugu bedelaysaa buu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam labada xaaladood ma adduunyadu ay ku taagan tahay mar aad faraxsan tahay iyo mar aad murugaysan tahay markaad faraxsanayd adeed alxamdulillah raaciso oo ilaahay u mahad celiso farxadaadii wanaag ilaahay ku dhaweynaysa noqotay markaad warwarsan tahay dhibaato ay ku haysato haddii aad sabirto waxay noqotay dhibaatadii kugu dhacday iyo warwarkii wax ilaahay ku dhaweynayo khayr aad kaga helayso adoonka muuminkii marka xariga ilaahay inuu adkaysto ayaa walaalayaal aad iyo aad muhiim u ah waxa jira walaalayaal sidaynu la wada soconno dhibaato weyn iyo culays weyn baa maanta muuminiintii haysta waynu arkaynaa maanta Gaza xaaladeedu way ka sii daraysaa Falastiin dagaalka ka soconaya maaha dagaal ka dhaxeeya Falastiin iyo Israa'iil oo kaliyaata sida dadka qaar ay u fahansayiin laakiin waa dagaal maanta muslimiinta iyo gaaladii ka dhaxeeya dhulka la isku haysta waa dhul muslimiin waxa la isu bahaystay waa dad muslimiina culayska gaaladii maanta ay ku hayaan Falastiin iyo sida ay u xasuuqayaan iyo shucuurtii dadka muslimiinta ahayd walaalayaal way kala tagsan tahay culayska halka ka socda iyo sidaynana ku aynu isaga dansanahay ee aad moodo laambadii iimaankaba in laynaga baqtiyay runtii oo arin aad iyo aad runtii u qeyra badan arintaasi maanta waxa la marayaa in waxa weeyaan 700 qof ay meel ku wada dhintaan oo haddana gaaladii inta isu timaado khudbada isu jeediso ay yiraahdaan waan idin garab taaganahay Israa'iil muslimiintina waad arkaysaa oo in arkaynaayo kuwii hor joogay muslimiintana xiniyaha laga saaray shacabka laftarkoodii meelo badan baynu ka muujin karnaa shucuurteena warbaahinaynu leenahay meelo bulshada aynu wax ka gaarsiinaynu leenahay aad bay u yar tahay inta qiiraysan ee ka hadlaysa dhibaatada haysata muslimiinta waxaynu leenahay walaalayaal shucuurteena aynu ku garab istaagno inaynu ka xunnay aynu muujinno maanta caalamka wuxuu ku wada fadhiyaa shacabkaas ku wada fadhiyaa meel kasta wixii laga sameeyo waa muuqanaya shucuur inta ka badan baynu u baahanay oo dhibaatada inaynu ka xunnahay aynu ku muujino waxa kale oo iyaduna aad muhiim u ah dhibaatooyinka dhacayo dhan inaku ilaahay baynu haysanaa masaa'ib ka dhacaya ilaahay baa kala wada ilaahay baa maamulsan ilaahay baa maamulkeeda iska leh haynu markaasi aynu rabnaa inaynu ilaahay u noqono oo aynu ku taageerno quraan akhris inaynu sameeyno alla bariyo inaynu sameeyno ilaahay inaynu u barino qof waliba inuu quraanka u jeedsado nuclear ka weyni ma jiro quraanka kariimka meesha loo jeediyo aynu ku taageerno quraanka inaynu akhriisano alla bari aynu galno oo aynu ilaahay subxaanahu wa ta'ala aynu ka barino awoodda laynoo sheegtay iyo dabaabaadka lagu garaacayo muslimiinta inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu jabiyo dhammaan muslimiinta walaalayaal fariinta aanu soo jeedinayna waxa weeyaan arinta Gaza ka socota waa arin gaala iyo islaam ka dhaxaysa waxa la inaga rabaa inaynu si dhab iyo qalbi dhab aynu arintaasi u garab istaagno walaalaheena muslimiinta oo aynu ugu damqano maanta waxaad moodaa muslimiintii in bayn meel lagu cunayo oo gaalayna kala xareysatay oo dadka inoo maamulkaana gacanta ay ku hayso dhaqaalayo wax walba iyadu gacanta inoogu qabatay war maanta muslimiintii dulli baa saarane ilaahay aynu u laabano qoladaas waxa weeyaan la dhibaya muslimiinta reer Falastiina aynu ku garab istaagno duco iyo qof waliba wixii uu awoodi karayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala gaalada dhibkeeda Allah inaga kaafiyo gaalada ilaahay ha jabiyo muslimiinta Allah u gargaaro yahuudiya waxaysa soo bahaystay ilaahay subxaanahu wa ta'ala makrigooda Allah ku celiyo makrigooda Allah ku celiyo muuminiinta meel ay joogaan ba quwadda Allah siiyo
قارهان مسلمين تا فلسطين لغود بي غزة بيت المقدس إلهي سبحانه وتعالى سدق دقا الله وقوليو إلهي سدق دقا الله وقوليو قوش إلهي حسيو إلهي سبحانه وتعالى عدوك الله كقبطو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه القويم. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم صلوا وسلموا على من زاده الله شرفا وتعظيما، كما أمرنا الله تعالى بقوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع مغتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وعلى نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم السلام.